laba qaab oo waqtiga looga faa'iideysan karo ama waqtiga loo maareyn karo. Midda koobaad inaad wax muhiimka ku ah inaad sameysid. Qof bini aadan aad tahay wax walba ma wada qaban kartid. Marka inaad isbarbar dhigtid laba shay mid kuwa aan muhiimka ahayn inaad ka saartid noloshaada ama samayntooda aad joojisid si mid kaloo muhiim ah u sameysid. wax walba kuma soo dari kartid maalintaad inta boos uga cariirin lahayd wax cusub mid kala meesha ka bixinaysa ama midka muhiimka soo reebanaysa. Midda labaad waa in waxyaabaha dheeraadka inaad joojisid yani fuduul excessive ka tusaalaan hurdada waxa uga baahan tahay waxay dhahan 8 inta kugu filan adiga hadaa ka heshid oo 6 saacadood 7 saacadood markaad seexatid inta dheeraadka ka gooy. qof hadduu ku soo waco 20 daqiiqo 30 daqiiqo marka wada hadashaan inta muhiimka laga wada hadlo ka jar. marka waxyaabaha muhiimka hadaa soo reebatid focus ka saartid waxyaabay dheeraadka ana aad joojisid in waqtigaagana si fiican u maareynaysa.